magaalada Gaza waxa ku hoostaala magaalo kale oo dhulka hoosteeda ah waa shabakad godad iyo marino xiriirsan kana kooban 1300 oo god kuwaasi oo dhererkoodu uu gaadhayo 500 kiiloomitir qaarkood waxay hoos u qodan yihiin qiyaastii 30 ilaa 70 mitir dhererka godadkan ay Xamaas adeegsato waxaabay ka dheer yihiin xadiidka tareenka dhulka hoosteeda mara ee magaalada London oo ka kooban 400 kiiloomitir oo inta badan dhulka dushiisa ku socda waa goobo leh dhammaan adeegyada loo baahan yahay oo dhan sida korontada isgaarsiinta iyo xitaa oksijiinta waa meelo aanay si dib yar u soo gaari karin noocyada kala duwan ee duqeymaha ee Israa'iil halkaasi ka geysato waa cabsida ugu xoogan ee xilligan Israa'iil ay qabto waana midda ay sababta uga dhigtay weerarka ciidamada lugta ee ay ku gashay marinka Gaza falanqeeyaashu waxa ay rumaysan yihiin in maxaabiista Israa'iil lagaga qabsaday dagaalkii 7 bishii Oktoobar in lagu hayo marinadan dhulka hoosteeda ah arrintaasi waxa cadeeyay qaar ka mid ah maxaabiista ay Xamaas sii daayeen kuwaasi oo warbaahinta la wadaagay sidii lagu geeyay marinka Gaza haweeneydan waayeelka oo ka mid ahay dadka ay Xamaas sii daysay waxa ay sheegtay in aanay garan karin sida ay ku gashay magaalada Gaza balse waxa ugu badan ee xasuusata uu yahay in la mariyay godad dhulka hoosteeda muddo dheerna ay halkaasi ku socdeen qaybo badan oo ka mid ah marinadan dhulka hoos mara waxa ay ku yaalaan soohdinta ay Gaza la wadaagto dalka Masar halkaasi oo la rumaysan yahay in wax badan ay ka soo galaan sida cunnada shidaalka dharka hubka iyo xitaa xoolaha marinka Gaza ayaa go'doonsanaa laga soo bilaabo sanadkii 2007 xilligaasi oo Israa'iil ay ku soo rogtay in gabi ahaanba la go'doomiyo Xamaas ayaana tan iyo xilligaasi waxay ahayd cidda ka talisa marinka Gaza waqtigaasi waxay Xamaas ku guuleysatay doorashadii 2007 waxaana ay banaanka u saartay ururka maamula Falastiiniyiinta ee Al-Fatah marinadani dhulka hoosteeda ka qodan ayaa waxa ay yihiin qaar Xamaas u sahlay in ay helaan wax kasta oo ay u baahan yihiin dhammaan alaabuhu waxay ka soo galaan dhinaca xuduudda iyada oo mar dambe loo gudbiyo boqolaal marinood oo godkani ka dhex samaysan Israa'iil waxay awoodi weyday in ay wax ka qabato khadadka noocan ah waxaana ay marar badan ku dadaashay in marinka Gaza ay ka joojiso sibirka biraha iyo walxaha kale ee dhismaha loo adeegsado iyada oo ka hortagaysa horumar ay Xamaas ku samayso marinadeeda dhulka hoosteeda ah tobannaan sano ayaa la sheegayaa in lagu guda jiray dhismaha iyo horumarinta marinadan waxaase si buuxda loo horumariyay markii ciidanka Israa'iil iyo dadka Yuhuudda ah ay ka baxeen marinka Gaza sanadkii 2005 qaababka loo adeegsado godadkan saddexdan qaab ee soo socda waa kuwa ugu muhiimsan waxyaabaha ay u adeegsato Xamaas marinada dhulka hoosteeda ah tan koobaad waa weerarka waxa ay fuliyaan weeraro ka dhan ah Israa'iil iyaga oo maraya dhulka hoosteeda kadibna ka baxaya meel fogaan ahaan aad uga durugsan halkii hore ay ka soo galeen waxa ay ka baxaan deegaano ay Yuhuuddu degan yihiin halkaasi oo marar badan ay hawlgal ka fuliyeen mararka qaarkoodna sidii hore u dhacday ay ka qabsadaan askar Israa'iiliyiin ah arinta labaad ee Xamaas ay u adeegsato marinada dhulka hoosteeda ah waa ilaalinta iyo badqabka dagaalyahanada iyo hogaamiyayaasha dhaqdhaqaaqa godadku waxay Xamaas ka caawiyaan in aanay arag diyaaradaha Israa'iil iyo in ay ka badqabaan duqeymaha dhinaca cirka tan saddexaadna waa tahriibinta hubka iyo noocyada kala duwan ee qalabka dagaalka oo marinadani ay muhiim u yihiin hawlgalka dhinaca bariga ee Israa'iil ay ku gashay marinka Gaza iyo cabsida laga qabo godadka Xamaas kahor hawlgalka dhinaca bariga ee Israa'iil ay hadda ka wado marinka Gaza jariidada la yiraahdo The Wall Street Journal oo soo xiganaysa sarkaal Mareykan waxa ay sheegtay in Washington ay Israa'iil uga digtay isla markaana ku waanisay in aanay qaadin weerar dhinaca dhulka oo marinka Gaza ay ku gasho walaaca uu Mareykanku xilligaasi qabay ayaa u muuqda mid durtaba soo ifbaxaya waxaana xilligan ciidamada Israa'iil ee duulaanka ay caqabad xoogan kala kulmayaan marinada dhulka hoosteeda ee Xamaas adeegsato maxay yihiin caqabadaha Israa'iil ay wajahayso labadan arrimood waa kuwa ugu muhiimsan marka laga hadlayo sida ciidanka Israa'iil ay dhibaato xoogan uga kulmayaan in ay wax badan ka ogaadaan godadkan tan koobaad kasakow duqeymaha Israa'iil ay rabto in godadkani ay ku baabiiso oo u muuqda kuwa aan guuleysanayn xilligan waxa sidoo kale aan suurtagal ahayn diyaaradaha aan cidwadin ee drone-ta in ay gudaha u galaan marinada dhulka hoosteeda ah maxaa yeelay waa goobo aan munaasib ku ahayn maadaama baaxadda godadkani ay aad u yaryar yihiin taasi oo sababi karta in diyaaradaha aan cidwadin ay burburaan arrinta labaadna waa qalabka GPS-ka oo aan ka shaqayn karin dhulka hoosteeda muddooyinkii la soo dhaafay ciidamada Israa'iil ee duulaanka waxay bartilmaameedsanayeen cisbitaalada ku yaala magaalada Gaza halkaasi oo gabadhfallo ka dhan ah bini'aadantinimada ay ka geysteen Israa'iil ayaa tuhunsan in cisbitaalada qaarkood ay xarun u yihiin hoggaanka sare ee Xamaas ugu dambeyntiina dhaqdhaqaaqa Xamaas oo la aaminsan yahay in ay haystaan 30,000 oo dagaalyahan oo ku hubaysan noocyada kala duwan ee hubka iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa ka sakow guulaha la rajaynayo in ay ka gaadhaan ciidanka Israa'iil ee muddada 40 maalmood ka badan dagaalka ka wada marinka Gaza
waxa ay godadka iyo marinada dhulka hoosteeda maran noqonayaan qayb weyn oo ka mid ah horumarka ay Xamaas ka samaynayso dagaalka ay kala soo horjeedo ciidanka Yuhuudda.